waxaan galnay marino mugdi ah godad qarso iyo godad biyood aanan ogeyn halka ay ku dhamaanayo waxaan soconay in ka badan 300 mitir oo dhulka hoostiisa haddaan biyaha gelaynaa waa aniga hadda cagaha biyaha dhulka geliyay haddaan si toos ah u gelaynaa kaba halkaas ugu tagaynaa dhulku waa nadiif la sheegay laakiin waa ogaan doonaa haddii ay khatar jirto anaga biyaha hadda dhex maraynaa bismillaahi rahmaani rahiim acuudu billaahi min ashaytaan rajiim soo soco dhinac miyaa isu badanaa mise caadi waxaan go'aansanay inaan galno gudaha ceelka meel ay adag tahay in la gaaro meel ay mugdi iyo cabsi badan ka jirto tallaabo kasta waxa ay ahayd taxadir waxaana hage noo ahaa maxamuud iyo maxamed balse siibasho fiiqyada dhagaxa iyo ceelku laqaba intuba waa halis kaabart saarugu yeesho ku siibeysan ku istaagina ku siibeysan idin saaran iska ilaahay yeesho ku siibeysan ku istaagina ku siibeysan idin bismillaahi rahmaan hadda waxaan maraynaa meel dhexe oo hadda waxaan sii soconay masaafo aad u dheer ma sii soconay waxaan u tagnay ila biyo oo dhacaya waxaan u tagnay dhagxaya inta la leego soo dumay hadda ka hor halkan biyo aad u fara badan baa soo mara marka qofka baran yaqaan ceelka inta hore uu ka yaqaan biyo soo buuxiyaan inta kale ma yaqaan laakiin caaw adduun kale baa ma tagnayba nakeen soo soco markii aan gudaha u sii galnay waxaan la kulanay ceelal waaweyn oo ku liqi kara haddaanan ka taxadirayn waxaan aragnay jaranjarooyin dabiici ah oo biyuhu qodeen waxaan aragnay godad dhaadheer oo mugdigu laqay iyo togag waaweyn oo biyuhu ay qulqulayaan dhulka hoostiisa meel aan qoraxda weligeed gaadhin biyuhuna way weli nool yihiin waxay ahayd adduun kale oo qarsoon socodkani ma ahayn mid sahlan dhoobada ayaa mararka qaar cagaha naga qabsanaysay fiiqyada dhagaxa ayaa halis ahaa siibashada ayaa fududay mugdiguna waxa uu kaa qaadaa dareenka masaafada mararka qaarkood waxa keliya ee aad maqlayso waa codka biyaha iyo neefta kooxdeenna laakiin tallaabo kasta oo aan qaadnay waxay noo furtay sir cusub